السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودا وادا أصحابي فضلا هداد نقو عصب تهي سبسكرايب ليه سينا شير غريسي وغارو دمان أصحاب تادا وحي تلايي تصالة أهنا نوغو ريب كومنتيغو هوسي مقعيقو وادنا محمد علي أدنا قرن أقاسمها أوروركا هبلها رقنا فذكاهي تي بي جي waxaan idinku soo dhaweynaynaa barnaamij cusub oo ugu magac darnay toddobaadkii tagay TBG barnaamijkan ayaanu si toddobaadle ah ugu ururin doonaa dhacdooyinka ama waxqabadka ururka ee toddobaadkii tagay ururka hablaha aragga naafada ka ah ee Tough Balangeeraris ama TBG qofba sidoo u yaqaano waxa uu taagan yahay dumarka iyo carruurta aragga naafada ka ee lagu ilaabay guryaha hoostooda kuwaas oo ku kala nool magaalooyin deegaano iyo gobollo kala duwan oo dhulka Soomaalida haddaba toddobaadkii tagay ururka TBG waxa uu gurigeeda hoyga ay ka degan tahay magaalada Hargeysa ku booqday Amaal Ibraahin Cabdilaahi oo ah gabadh aragga naafada isla markaana uu dheeryahay xanuunka autism-ka gabadha yar Amal waa gabadh baaralaysa aad iyo aad ayaan uga argagaxnay markii aan ku booqanay hoygeeda ay ka degan tahay magaalada Hargeysa gabadhan ayaanu gaarsiinay deeq raashin oo raashin ay quutaan hal qoys oo raashinka ay tamiyada kala duwan raashinkan oo ka kooban ay tamiyada kala duwan ee raashinka sidoo kale Amaal waxaanu gaarsiinay qadar lacag oo kooban oo ah $950 ama $500,000 oo ah lacagta Somaliland shilin haddaba nala daawada clipkii aanu ka soo qabanay Amaal Ibraahin Cabdilaahi oo ay hoygeeda magaalada Hargeysa ku booqdeen qaar ka mid ah xubnaha ururka TBG Amaal walaasheed walaal caasha horta marka hore aad iyo aad baan ku salaamayaa walaal waxaan ku doonsiinayaa lacagta qadarkeedu yahay $500 oo Somaliland iga gudoon walaalo ka gudoon aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal iminka sidaad arkaysaan waxa dhinacayga taagan Caashe Ibraahin Cabdilaahi oo ah Amaal Ibraahin Cabdilaahi walaasheed isla markaana ah gabadha gacanta sida khaaska gacanta ugu haysa una xil saaran xanaaneynta Amaal caasha soo dhaw hooyo maadaama ay Amaal hadlaynin adiga ayaa u hadli doona bal waxaad warbixin kooban naga siisaa xaaladda ay ku sugan tahay Amaal Ibraahin Cabdilaahi xaaladda ay ku sugan tahay daawaydanka arkaayo alxamdulillah aniga mooyaane aabaheedna sariirtu saaran meersi kalena ma haysato ilaahay waxaan ka rajeynayaa in ilaahay miisaanka xasanaadka idinku daro caawinada loo keentay wahagaag hooyo waxaad nooga warbixisaa bal Amaal sideebay xanuunkani uu ugu dhacay markii ugu horeysay indhahaas goorma ayaa la helay si xanuunkan goormaad ku aragteen Amaal xanuunkan markii ay dhalatay 2 jir ay ahayd hooyadeed ay dhimatay wax xanuun ah oo qabtay ma jiro markii dambe hooyadeeda haysay ayeedeed markay dhimatay wax xanuun ah qabtay ma jiro habaryarteed baa loo keenay habaryarteed intay haysay ayaynan tan sidan u darxumootay oo xubnahani wada qalaleen oo aragga indhuhu daciifay oo markaas ay dhibaatada weyn qabsatay 3 sanadood ay habaryarteed haysay sax marka Amaal wax dhakhtar ah oo tusimo jira hooyo may anu imika waxaan hayay 3 sanadood wax dhakhtar oo tusimo jiro awoodayda baan gaarsiin marka sax waxaad markaa hooyo nooga warantay Amaal bal xaga cuntada oo kale maxay quudataa maxay si cunta aanu karino baan u jilcinaa dabeetana jiifkaas lafka loogu gura lagu siiyaa صح إنكم مركا حفايض أو كلنا قرما أم سجارة يد مالتي كبدش مالتي أبر شير بالقبدة صح كنتي قبدي هو يهبلها TBG أطلنا هي أنا قبلها رجعنا فذا كهبان هاي وحنا كل وحي أنا كوسو تاكلين كريني وديك تشوشين وبنا ملاينا يا مركا هو أنا وحنا وتاجن هاي إن أنا عاوينا هبلها لبطت كلباتي سن رجعنا فذا كه سيبدو مركي عرور تمهيمة دنا ujeedadayda labaadna waxa weeyaan inaan codka dadkaasan codkooda la maqlin aan codkooda meel dheer gaarsiino ummadda Soomaaliyeed ee ku daawan doonta daafaha dunida ka daawan doonta fariinta iyo codsiga aad hawada u marinaysaa muxuu yahay fariinta iyo codsigan hawada u marinaya waxa weeyaan awood aan dhakhtar ku geeyay ma hayaan waxaanan qabaa hadii dhakhtar la mariyo inay caafimaad heli leedo ilaahay caafimaad siin lahaa marka waxaan ka codsanayaa adduunweynaha muslimiinta daafahooda ku nool inay soo caawiyaan wixii ay ugu soo tari karaan igu soo tara aadiya hooyo naga raali ah waxaan jeclaanahay lambarkaaga xabka hoosina waa laga qori doonaa lambarka shaashadu ka soo bixi doonaa bal lambarkaagana wixii lambar laga la soo xiriirayna noo sheeg waxa weeyaan 625 3260 waa hagaag daawadayaal sida indihiina
inaba amaal weydiin muuqataa wanaad arkaysaan insha Allah waxaan rajeynayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhani inay nagu gacan istaagto hawshan khayriga ah ee wadno ka habla araga naafaka ahaan ama ka TPG ahaan higeenka ururka walaashii Xamdi Cabdi Sokso Xamdi marka ugu dambeeyay ee bulshada Soomaaliyeed oranaysa muxuu yahay kulli hadalkii oo dhan adna dhamaysay oo hadal muu harin balse anagu waxaan idin xasuusinaynaa mar walba inaan u taaganahay haweenka iyo carruurta araga naafada ka meel kasta joogaan ee afka Soomaaliga ku hadla intaasi waxay noogu dhamaaday muuqaalkii aan ku soo booqanay amaal yar oo igu wehelay aadniba hore u xustay agaasimaha ururka Tasbaline Girls Adna Maxamed Ali iyo qasnajiga ururka Sacda Maxamed Cabdiraxmaan tan iyo kulanti dambeynteenu ku kulmi doona muuqaalka xiga waxay idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh filayaa inaad muuqaalkaasi fiican wada daawateen isla markaana aad uga wada bogateen ilaahayna quraankiisa wuxuu ku yiri watacaawanu calal birri wa taqwa isku kaalmaysta birriga iyo alla ka cabsiga waana waajib diimiya inaynu iscaawino kuweena dhibaataysan aynu garab taagnaano una muujino inaynu markasta garabkooda nahay waxaan rajaynaynaa ururka TPG ahaan inaad hawshan aanu hayno ee ballaaran aad nagu gacan qabataan annagoo og inay hawshani tahay hawl naga baaxad weyn annagoo og oo dareensan ayaanu haddana isxil saarnay ama aanu dhabarka u ridanay hawshaas isla markaana aanu go'aansanay inaan ummadda Soomaaliyeed u soo bandhigno dadkaasi la ilaabay ee ku kala nool magaalooyinka kala duwan ee dhulka Soomaalida haddaba barnaamijkii toddobaadkii tagay TPG maanta intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka xigeenta isku iman doono waxaan idinkaga tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh